hay-adda Hormuud Foundation ayaa maanta deeqda u gaarsiisay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay jiifaan bukaanno dad ku waxyeeloobay biyo sumaysan oo ay cabeen isbuucii laga soo gudbay gudaha magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta hay-adda Hormuud Foundation oo saxaafadda kula hadlay gudaha isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tani horu dhac ay tahay balse ay wadaan dadaallo kale oo ay ku doonayaan sidii ay dadkaasi gargaar bini'aadanimo ku gaarsiin lahaayeen. inkastoo dadku hadda xaaladoodu ay ka soo reynayso laakiin wali waxaanay ka maarmin gurmad bini'aadanimo la gaarsiiyo iyadoo sidoo kalena ay jiraan isbitaallo kale oo ku yaala magaalada Muqdisho la gaarsiiyay isla qoysaskaasi. Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Foundation oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan tii ugu horeysay aanay noqonaynin isla markaana tii ugu dambeysay aanay noqonin iyadoo sidoo kalena uu sheegay inay jirto deeqo kale oo dawo ah oo ay ugu talagaleen bukaanadaasi iyo dadka kale ee ku sumoobay biyaha ay cabeen ee qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ee Banaadir uu ka mid yahay jiifa. annagu Hormuud Telecom Foundation waxaan maanta rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan gudoonsiino isbitaal Banaadir General Manager Dr. Abdirasaaq daawooyinkaas aad arkaysaan oo loogu talagalay dadkii degmada Yakshiid ku sumoobay oo dhaawac ahaan meeshan loo keenay yaan rabnaa hadii Alla yiraahdo inaan gudoonsiino ku ekaan mayno intan aad arkaysaan oo baakadaha ah baahida si joogto ah ayaan uga qayb qaadanaynaa. shirkaddan Hormuud Telecom markay samaysay qaybta Hormuud Foundation waxa loogu talagalay inay waxyaabaha xawaadista oo dawaarida ah oo soo dariya oo mataqaana si lama filaan masaa'ibta ku dhaca inay si degdeg ah uga jawaabto. taasu waa wixii aan horay u bixi jirnay. mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho isagoona sheegay in dadkaasi aanay ka maarmin kaalmo bini'aadanimo gaar ahaan dhanka dawada oo la soo gaarsiiyay iyaga iyo bukaanada kale isbitaalka jiifa. marka waxaan ka rajaynaynaa iyagana inay gartaan ay taabtaan waxa la taaban karo u sameeyaan dadkooda hadii ay leeyahay aadan ugu mahadsanyihiin xogaaga noo keeneen waxa weeye runtii Ilaahay ajir ka siiyo waa mahadsantiin. dhawaan ay ahayd markii boqolaal qoysaska ku nool xaafadda Jungal ee degmada Yakshiid ee magaalada Muqdisho ay ku sumoobeen biyo ay cabeen in badan ayaa ku dhimatay biyahaasi iyadoo sidoo kalena qoysas tiro badan ay ku xanuunsadeen isla markaana isbitaalada magaalada Muqdisho qaarkood la jiifiyay.